بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha reer Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan hambalyeeynaya oo telefoonkan ku soo tiigsaday harwanaag ayaan salaamayaa meel kasta ay joogaan reer harwanaag oo si fiican warka nooga dhargiya hadalladayadana ka ay tamiya ku amaanaba ay ka dhageystaan oo iyagu yihiin wargidasi aad u wanaagsan dadkana gaarsiiya aadna ugu hanweynahay shabakada harwanaag news waan hambalyeeynaya waxaan ka hadlayaa oo ka bilaabayaa sheeka ayaamahanba xoog u socotay oo ay xaq ahayn inaan ka jawaababa oo waxa weeye waxa laga jawaabahay oo hadallada ama hadallada murtida ah laakiin haddana boos yaa iga banaanaaday anigoo Shams Qardajeex kana soo hadlaya Canada magaalada Toronto anoo afaan reer Djibouti halgamaa reer Djibouti oo in badan soo halgamay dalka Djibouti dalka Somaliland markii halgankaygu dhamaaday haddii aan reer Djibouti aan u wareegay dalkii reer aan ka soo xiriinay oo ahaa hablihii SNMta ugu halgamayay dibadda ولينا أن سيد بدي أجوبه ولا شيء وحن ليه هاي الله هذا يا سهل على ورثنا قبل أهيد برجي هراء سنة أدلوج عليه هاي لكن بريها دم سنة عديدو أي أدو صوت مع تاي أو محك السبب بيو بطرق ناك السبب صوت هذا حبلو واتي دورسن خاصة هبله وقوي جاه الرسول ما لهم وحلقوا يقاني دورسني لكن هبلو عاية فنانين استهرت ماذا يو ودن استهر ماذا إنه وآخر سوماليلاند ولا شيء سادة وحنو شيغيا سادوي دافعات كاماها أداة دونايا سماعات سميستو oo dib soo ceshato magacaaga halaabay oo doonaya cali samatar iyo sheeka ah ku soo meeraysanaya waxaana daafacaysa cali samatar ma daafacay sidee kuwaanu ka irnay Toronto oo garanayso oo aanu ka caydinay halkani oo adduunka meel ay agdhigaan ay leeyahay oo imika dacwadiyada ku socoto yaa daafacaysaay taad leedahay Soomaaliyeed baan aanu saxa uma jeedo cali samatar marka cidda doonaysa u jeedad ugu qoto dheer tahayna waan ogahay walaalsima markii heesaha socon waayeen ee lagu soo gali waayay fankaaga lagu soo gali waayay miyaa doonaysa inaad baaha ku gurato cali samatar baan daafacaya cali samatar daafacaad hadduu karayo xoolihii Soomaaliya iyo laakuusarida sheegaysay maalkoogii dibadda dhigtay uu isu daafici kari waayay waxaan ku ogahay magaaladu degan yahay darafkiisa iyo jaarkiisa inay yidhaahdeen ninkan naga guuro waana dhigi cab waxaan ku sheegayaa saadoy dhammaan dadka Soomaaliyeed ama dadka jooga dibadaha waa dad indhaha lagu soo taagayo oo la isleeyahay waa dadka u maqan waa dadka ku soo jiidi kara qurux iyo sharaf walaal maanta keentay inoo dal dimuqraadi joogna oo Mareykan iyo Canada foodadkooda iyo arrimahoodu qabiil aan ku saleysnayn oo yihiin dad isticmaala had iyo jeeraale kalarka xitaa qariyi kolkay kalar adigu ay kugu doonayaan ku meel mariyaan qariyay oo dimuqraadiya adigoo jooga miyaad isticmaashay qabiilo yar oo harti iyo dhulbahantaad sheegtay inta xinaan ku taagnay dar isbeelani aalsan soo farka baranin hadda waxaan ku leeyahay cidna daafici meesha lafahaaga daafac oo dadkaaga dhinac ka raac oo dadka reer Soomaaliland dhinac ka raac kaad leedahay cali samatar waxba muu geysana kuwii Djibouti kugu soo dhaweynayay ee duruucda ku siinayay ee ku soo dhaweynayay waxay haayeen naaga reer Saxaaqa waxay haayeen naagahu dadkoogii baabay ee guryahoodii ragoogi ku waayay ayay haayeen kuwa magaca Soomaaliyeed ugu soo dhaweynay qabiilka kugu soo dhaweynayne ina Soomaaliyeed oo dalkeegii ka baabay oo dibadaha qurbaha meeraysanaysa taasina sooriyadii aanu lahayn gaarka u lahayn in lagu yaqaanay ayay hay masaxnigii wax lagu riday saaday ku xaartay musbiya joon ka xumahay afliyaa inay taqaan baan filaya waxaan ku iri mid kale fanaan qaaliya oo inamada fanaaniinta inamada ugu dhagan ahaana aflagada dudkeysatay waxaan ku faraxsanahay Cabdi Nuur kiyo la qaytamin naag waa nin hadal yaqaana waa nin kartile waa nin fanaana waa nin halgamaa dalkaad ku taaxtaaxiso ee heesaha ku dakaynayso waa ragii soo dhaliya calanka u halgamay weeyaan Cabdi Nuur allaale annaga soo reekaabsan yahay annaga goob wada ka soo duuri jirnay oo calanka Djibouti halgami jirnay imikana Soomaali meeshay joogtaba waa fanaan loo kaco oo haybad iyo qiimo leh fanaan qadarqayn ka samaaha habla ka faagtay waa runtaayo nin sinada yaqaana ma aha fanaan kaasi waa nin fanaana oo salaad xafida oo ilaahay iyo umadiisa ka nabad galeen ma aha qof dhaqaysanaya oo siilay gal oo la kuwisar gal oo cid kastaba gal haddaba dadweynaha reer Soomaaliland imika ay iyo manacna iyo naagala sheegtaan diyaaro meher rag bay haystaan
mar labaadse anagu dalkayga waanu hananay haddana haddaad nagala soo qayb gelayso waa dabaaldegii somaliland saytuunkii baa soo socda gaabay foorkii baa soo socda maxaa dadkaaga kaa reebay walaashaydii qaaliga hayday maxaa keenay calan intii lahayd dad tuurtay oy ay iska dhigeen hablihii la yaqaanay ee fanaaniintii hore adi kaa waaweyneed bay iska dhigeen oy maryam mursal bay iska dhigtay oy hibe maxamed bay iska dhigtay adigu dushaada ka muuqdaa raggii kuwaa lahaa waa kuwa calanka madow qaatay xabaalaha faqanaya markaas saadooy dadkaaga soo raac waan kula talinayaa gabadh fanaanadaa tahay gabadh walaashayaa tahay shalay weynagii bishaa soo socotay juun bisheedii aan ka dabaaldegayna calankii jibuuti ugu dabaaldegayna montreal waanan kaa naxaya haddii xanuunku hayana imika waa ka dee obama ka dhigay free medicaalkii haddaba daktarada tag walaalo kiniinaa la iska qaataa depressorku iska jira adduunka meel kastaba innagaase maanta haysano dhaktaro markaa waxaan kuleeyahay tolkaaga kugu soo caadinaya kugu soo dhiirigelinaya mikrofona kula farayaana kuwa kaa naxaya maaha markaa waxaan kuleeyahay walaal waanan ku salaamayaa waxaan si saada u sheegayaa le saadooy walaal naag dhaqan leh oo soomaaliyada oo weliba haddana reer somalilaana innaga afkeynina waxaa soo marino oo ragga waxoodaa la goynayo ragga kadbe lagu qabanaya aan idhaahno innaga xaggeena waa ka xaaraan mana odhan karno markaan waa nin madaxweyne ah waa nin cadaalada yaqaana waa nin wanaagsan intaasoo ummado reer somalilaana iyo intaasoo ummada u kacday dooratay food ugu riday markaa adigu magacaaga iyo naag hadashay magac kuma baabi'i karo imikiina haatana food baa soo socda haddii ilaahay u qoro daahir riyaalakaahid wuu heli haddii in ay ka dhamaatayna dee in fiican oo sharaf iyo qiimale wuu soo hayey intaasoo midyano reer somaliland kamaad indha dheerayn danna kaama yahayn soomaaliya markaad joogtay dalka somaliland wixii gurayay wixii goynayna waad caafaysaa rag aan waxba samayn waad dhariiqaynaysaa naa waa lagaa ina dheeryahay siyaasadna lama socotid waxna lama socotid halkaaga iska boodbood dhaarba intaad naag ammaanto ha ku marti qaado beriskii khasar waxaa iminku soo galay weli miyaa lagaa joojiya markaa waxaan kuleeyahay walaal sidaa iyo nabadgelyo waxaanan u mahad celinayaa suun xadi iyo habar yar si weyn baad u jiroocotay si weyn baad u danqatay waxaan mahad ama sahbalyo u dirayaa cabdinuur allaale oo kelmad markii la weydiiyey ee layidhi maxaad ka qabtaa heestaa ay soo tirtay saado uu yidhi waa wax 30 sano ka soo wareegeen waa ka bariyey ninkii cunay baa ka liita sharaf iyo qiimo ku leeyahay wuxuuna yidhi kala jawaabi maayo qofkan waalana la darajo ma yihi anigu lana qiimo ma yihi marka waa halgama weyn waa nin la yaqaano aad iyo aad ba cabdinuur allaale ragga fanaaniinta kuwa edebta badan leh ayuu ku jiraa oona qiimo aad baan u mahadnaqayaa run xadina waan u mahadnaqayaa gebiga dhanaantiinba sida fiican aad yeesheen eed u jawaabi weydeen eed uga wada aamusteen oo nin kastaba intuu dhegaysto mashiiqsaday iskaga kacay combyuutarkii waa aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan leeyahay saadooy soomaaliya waa jaarkayagii waa walaalahayo waan u ducaynaa nin naag wuxuu doonaysaad iska dhigaysaa adigu halkii kale beriska bisil yahay yaa tahay ilaa saxaabihii waa la sheegayay dumarku halkay kale beriska bisil yahay boodboodaane adna waabad kasii xag jirtaaye iska boodbooda kol jibuuti u duulduulo walaashayey soomaaliyana waxba uma haysid somalilandna wax uma haysid nin jibuutina wax uma haysid aayar halkaaga iska fadhi aayad halkaa minnesota ayaad iska fadhi dadkana ka daa aflagaadada waxaanan ka yaabanay wariyaasha wax kaa dhegaysanaya ee kule naakaay wax samee kaama naxayaan ninkaa naxaya waana intuu kinin ku siiyo ku sayxiya ka daa dadka aflagaadada sidaa iyo nabadgelyo waad mahadsantihiin dhammaanba dadweynaha dhegaysanaya muslimiinta dhegaysanaysa inta af soomaali ku hadasha waxaan leeyahay taado cid u jawaabi karta iyo cid dambo la hadli karta kufuwana xad saasay ku dhimaatay sheekadu waanay xidhan tahay kelmaday soo celisay ee dambana cid uga jawaabi kartaa ma jirto sidaa iyo nabadgelyo